السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دawadayaasha qiimaha badan oo ku soo dhawaada cashirka labaad ee Ingiriiska bilowga ahaa. Cashirkani maanta waxaan ku baranaynaa qaabka la iskugu tilmaamo meelaha. Location waa meel. Location waxa weeyaan waa meel. Macnaheedu waxa weeyaan waxaan ku baranaynaa cashirkan qaabka la iskugu tilmaamo goob. Tusaale meel ayaad u socotay, meesha rabtaa qof inaad weydiiso qaabka ugu tilmaami lahayd ama uu kugu tilmaami lahaa marka location one. sida caadiga cashirkan marka hore anaa akhrinayo oo fasirayo, kadibna waxaad dhageysan doontaan dad cadaan ah oo dadka luqadda u dhashay oo markaa ku hadlayo. La qabsi wanaagsan. waxaan bilaabaynaa su-aasha kooda waxa weeyaan where is the school? Where is the school? Schoolka waa xagee? Where is the school? Schoolka waa xagee? hadda marka locationka aan barayno waa school. School waa goobta wax lagu barto. marka wuxuu leeyahay where is the school? Schoolka waa xagee? jawaabta waxay noqotay marka it's between the library and the park. It is between the library. Schoolka wuxuu u dhexeeyaa library-ga and the park iyo park. marka labada eray library waa meesha buugaagta ay yaalaan lagu akhristo. library baa la Soomaalida xataa library baa la. parkna waa beer ama jardiin, meelaha jardiinooyinka ee la fadhiisto weeye. tusaale magaalooyinka waxay leeyihiin meel qurux badan oo lagu nasto la fadhiisto. The park sida Nairobi kale waxay leedahay Uhuru Park. muqdisho kale waxay leedahay Peace Park ama beerta nabadda oo kale. meelahaas oo kale lagu nasto ayaa waxa la park. marka it's between schoolka wuxuu u dhexeeyaa the library-ga ama maktabadna la dhahaa. maktabadda meesha buugaagta lagu akhristo and the park iyo jardiinada ama beerta beerta lagu nasto ee magaalooyin ku yaalo. labadaas u dhexeeyaa. Where is the post office? waa xagee xafiiska boostada? Where is the post office? waa xagee xafiiska boostada? Post waxaa la dhahaa meel warqadaha lagu kala dirsado oo waa qayb qaata warqadaha dalka gudihiisa iyo dibadiisa. marka where is the post office? waa xagee xafiiska boostada? It's across from the movie theater. It's across waa markii aad gudubto from the movie theater. theaterka movie waa filimada la daawado, theaterna waxaa la meesha lagu daawado. marka it's across from the movie theater waa markii aad gudubto, markii la gudbo movie theater. theaterka lagu daawado filimada. Soomaalida theater bay dhahaan, theaterka qaranka kala wada dhashay. Where is the Royal Bank? xagee ku yaala bangiga Royal? Where is the Royal Bank? xagee ku yaala bangiga Royal? erayga Royal hadda waa magaca bangiga, laakiin boqortooyada wax la xiriirana Royal ayaa la. It's next to the supermarket. waxa uu ku xigaa supermarketka. erayga next aan barayna it's next wuxuu ku xigaa to the supermarket. supermarketku waxa la soo taqaanaa supermarket Soomaalidu way dhahaan waa meel weyn oo maaragtay alaabo kala gedisan ay yeelaan lagu gado. alaabo kala gedisan lagu gadaa supermarket. waxa lagu gadi karaa cuntadii, cabitaanadii iyo xataa qalabkii electronic waxaas oo dhan lagu gadi karaa. Where is the gas station? waa xagee kaalinka shidaalka? Where is the gas station? waa xagee kaalinka shidaalka? gas station waa dhaha, petrol station waa dhaha. waa xarunta, waa kaalinka shidaalka. It's around the corner from the church. wuxuu u dhow yahay waa it's around the corner from the church. wuxuu ku yaalaa meel u dhow kaniisadda. church waa kaniisadda. it's around wuxuu u dhow yahay. around waa meelaha hareeraheeda wey. it's around the corner wuxuu u dhow yahay. corner waa geeska from the church ee kaniisadda. Where is the barber shop? waa xagee tima jaraha? barber shop waa tima jaraha
raislaha waxaa la dhahaa wey tima jare waa meesha timaha lagu jiro. Where is the barber shop? waa xagee tima jaraha. It is near the bus station. wuxuu u dhow yahay boostejada basaska. It's near the bus station. wuxuu u dhow yahay boostejada basaska agteeda. marka bus station waa xarunta laga raaca basaska. waxaa la bus station. qaybtaas waxaa noogu soo gabagaboobay cashirkii qaybta koowaad ee locationada ee su'aalaha iyo jawaabaha aan isku weydiinay. hadda waxaan geli doonaa waxaad dhegeysan doontaa isla su'aalihii jawaabihii hadda aan fasirayay oo dad luuqadda u dhashay ay ku hadlayaan. dhegeysi wacan. Where is the school? It's between the library and the park. Where is the post office? It's across from the movie theater. Where is the Royal Bank? It's next to the supermarket. Where is the gas station? It's around the corner from the church. Where is the barber shop? It's near the bus station. aad iyo aad baad umahadsantihiin. waxaan marka ku jawaabaynaa no questions. yani no questions waa su-aalo looga jawaabaya maya. no questions waxaan baraynaa su-aalo looga jawaabayo maya ayaan baraynaa. haddaba waxaa kamid a su-aalahaasi. su-aasha kood waxay noqonaysaa are you married? waxaa weydiiyey gabadha are you married? xaas ma tahay ama ma lagu qabaa? xaas ma leedahay? are you married? xaas ma leedahay mise ma lagu qabaa? no maya ayay tiri. I am not yani ma ihi mid xaas leh. I am single waxaan ahay single ama keli ayaan ahay. wuxuu yidhi tell me about your new car. gaarigaaga cusub iga waran. tell me waxa iga sheeg about your new car. gaarigaaga cusub. is it large? miyuu weyn yahay? gaarigaaga ma weyn yahay? waxay tiri no maya it isn't. ma weyno. it is small. waa uu yar yahay gaarigaaga. waxay marka tell me waxa iga sheeg about the questions su-aalaha in your English book. buuggaaga ingiriiska. are they difficult? ma adagyihin? marka erga difficult waa adkaan. waxay tiri no maya ma adko. they are not ma adko. they are easy. su-aalahaasi waa ay fudud yihiin. waxay tell me iga waran ama ii sheeg about your new neighbors. dariskaaga cusub. are they quite? ma degan yihin? dad degan ma yihin? are they quite? dad degan ma yihin? waxay tiri no maya they aren't. ma aha kuwa degan. they are noisy. way qaylo badan yihin. they are noisy. way qaylo marka erga badan waa noisy waa qaylo badan. quite ayaa kasoo jeeda. marka saad arkaysa su-aalaan waxaa arkaysaa sifooyin iskhilaafsan. matalan quite degan, noisy qaylo badan, large weyn, small yar, difficult adag, easy fudud. waxaasaan maanta baran. haddaba no questions qaybta labaad baan galnay. bal hadda dhegeysa hataa dadka u dhashay luuqadan oo ku luuqeynayo ama ku hadlayo isla su-aalihii hadda isweydiinayo. Questions. Are you married? No, I'm not. I'm single. Tell me about your new car. Is it large? No, it's not. It is small. Tell me about the questions in your English book. Are they difficult? No, they're not. They are easy. Tell me about your new neighbors. Are they quiet? No, they aren't. They are noisy. Short answer. aad iyo aad baad u mahadsantihiin khiyaarta sharafta leh. haddana hadda waxaan u gudbaynaa qayb kale oo ah short answer. short answer macnaheeda waxaa waye waa jawaabo gaagaaban. short answer jawaab gaaban. qaabka jawaab gaaban loo bixiyo waxaa fiican markaas qofku ku hadlayo inuu jawaab gaaban bixiyo. tii baa la baraynaa. soo dhawaada dhegeysi wacan.
Is Alice young or old? Alice ma yar tahay mise way weyn tahay? Fiirada laba sifa mara. Young weyn, old, young yar, old weyn. Is Alice young or old? Alice ma yar tahay mise way weyn tahay? She is young. Iyadu way yar tahay. She is young. Iyadu way yar tahay. Is Bill tall or short? Bill ma dheer yahay mise wuu gaaban yahay? Erga tall dheer wey, short na gaaban. Is Bill tall or short? Bill ma dheer yahay mise wuu gaaban yahay? Is Bill miyuu Bill tall dheer yahay or short mise wuu gaaban yahay? He isagu is short wuu gaaban yahay. He is short wuu gaaban yahay. He is short isagu wuu gaaban yahay. Is Albert apartment? Miyuu guriga Albert degan yahay? Albert's apartment. Apartment waxaa lahaa waa guri dabaq ka mid ah oo qayb yar oo isku go'an. Is Albert's apartment? Miyuu guriga qaybta uu degan yahay, guriga qaybta uu ka degan yahay Albert big weyn tahay or little mise way yar tahay? It is small way yar tahay. It is small way yar tahay. Waa the last examination easy or difficult? Imtixaanka la soo dhaafay ma adkaa mise wuu fudan? Waa the last examinations, imtixaanadii la soo dhaafay. Last imtixaanadii la soo dhaafay ama hore. Easy ma fudayn or difficult mise way adkaayeen? Waa the last examinations, maxay imtixaanada la soo dhaafay easy ay fudayn or difficult mise way adkaayeen? They were difficult way adkaayeen. They were difficult way adkaayeen. Is Julie married or single? Julie ma xaasba mise waa scarborough ama single qof aan la qabin? Marka is Julie miyay married tahay mid la qabo or single mise waa single? Waxay tiri she is single. Iyadu waa single yani lama qabo. Single waa keli qof aan la qabin. haddaba aan aragno short answerka su'aalaha hadda way ku luuqeynayaan dadka luuqadda u dhashay. Answer. Is Alice young or old? She is young. Is Bill tall or short? He is short. Is Albert's apartment big or little? It's small. Were the last examinations easy or difficult? They were difficult. Is Julie married or single? She is single.